madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa qaabilay safiirka maraykanka sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo safiirka dalka maraykanka ambasador richard h riley. salaan iyo soo dhoweyn kadib waxay ka wada hadleen arrimo door ah oo salka ku haya xidhiirka wanaagsan ee labada dal ka dhexeeya, nabadgelyada guud ee mandaqada geeska afrika, arrimaha doorashooyinka, heshiiska is-afgarad ee dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda federaalk itoobiya. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa ugu horeyn xog waran guud ka siiyey safiirka arrimaha doorashooyinka somalilan ka qabsoomi doonaa dabayaaqada sanadkan, waxaanu madaxweynuhu xusay inay juhdi badan gelinayaan doorashada culays kasta oo ay ku tahay somalilan, kuna qabanayaan wakhtigeeda iyadoo aanay cidina gacan ku siin, taana ay isla ogol yihiin reer somalilan iyo asxaabta in dalka doorasho ka dhacdo. xukuumadduna ay dhammaystirtay wax kasta oo suurtagal ka dhigaya in dalku uu u dareero doorashooyin. sidoo kale madaxweynuhu waxa uu safiirka faahfaahin ka siiyey nabadgelyada mandaqada geeska afrika, waxaanu isdul taagay heshiiska is-afgaradka ee dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo dowladda federaalk itoobiya, isagoo xusay in labada dal wixii ay ku heshiiyeen ay iyaga u gaar tahay, islamarkaana wax dhibaato ah aanay dalalka jaarka iyo caalamkaba u lahayn, balse ay soo kordhin doonto iskaashi dhaqaale, mid amni iyo isu socodka ganacsiga. taasina ay xoojin doonto dadaaladii hore loogu jiray horumarka gobolka. madaxweynuhu waxa uu iftiimiyey in somalilan ay u leedahay waayo aragnimo buuxda wixii khilaafaad ah ee dhexdeeda ah, kuna dhammaysato gudaheeda xal nabadgelyo. dooda muqdisho ee marka uu hirgalo heshiiska isfahamka ee somalilan iyo itoobiya waxaa xoogeysanaya al-shabaab, kaasi xaqiiqo maaha. waxaanu ka leenahay marka uu hirgalo waxaa xoogeysanaya iskaashiga amni. somalilan cid kasta iskaashi iyo nabadgelyo ayay diyaar ula tahay, waxaanay u halgamaysaa qarannimada uu u ogol yahay axdiga afrika ee qeexaya inay dowladda afrika ee xornimada ka qaadatay isticmaarkii ay ku ekaanayaan xuduudihii isticmaarka. safiirka maraykankuna waxa uu caddeeyey inay dowladdiisu diyaar u tahay wada shaqaynta ka dhexaysa somalilan iyo maraykanka, horumarka iyo dimuqraadiyadda ay somalilan ku tallaabsatayna ay soo dhoweynayaan. madaxweynaha waxaa kulanka ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga doctor ciise kayd maxamuud. dhinaca safiirkana waxaa ku wehelinayay mas-uuliyiin kale ah geoffrey bayger iyo over muller martin. cabdiqaadir soko, warbaahinta qaranka, Hargeysa.